بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad ayay maanta maalin aniga si gaar ah ii taabanayso oo taariikhi ah u tahay. Waxaan soo dhaweynta qaaliga ah ee degmada Maxaas iyo dadka reer Maxaaseed ay maanta igu soo dhaweeyeen degmadoodii. Maxaas halgankan maanta socda ee dagaalka shabaab iyo khawaarijta lagula jiro ka hor ayay magaalo ahaan ayadu ay xor ahayd. horta baahida airborka waxa keentay meeshii yareedo Maxaas aheedo go'needo jasiiradda aheedo meel kale looga imaan karo aanay jirin in cirka looga soo degmo ogiye maanta horta Maxaas meeshii ma aha. waata oo madaxweynuhu sheegayo oo inta dad ka timaad iyo habeen madow hadaad balweyne ka soo baxday iyo subax dad ka soo baxday inta ka dhaxle aad Maxaas imaanayso. horta baahidii shalay Maxaas ay qabtay maanta baahiye ka duwan ay qabtaa sida aniga ay ila tahay. ceelka iyo dhakhtarka iyo iskuulka iyo howlahaas iyo howlo kale ka waaweyn iyo dhismaha maamulka degmada iyo howlo aad u waaweyn socdo. wasiirka arrimaha gudaha waa kii hadda halkan uga dhawaaqay Maxaas degmada ugu horeysay ee xureynta kadib xarunta maamulka iyo maxaan ku raadayay dhismihii dawladda loo dhisay inay ayada koow horta ay tahay. degmooyinka kale ama hadda laga xoreeyo ama horay xorha u ahaadaane dalka oo dhan insha Allah taala waa siman oo ay ka wada siman yihiin oo horumarka la xiriira ayaa dawladdu ay ka qaban doontaa. fayskan dagaalka markaan ka soo jeesano waana si bilaabaynaayo meeshii hadba xorowdo wixii loo heli karo waa geenaynaa. airborka aad codsateen Maxaas waa loo sameeynaa hadii aan leeyahay. laakiin waxaan idinka rabaa waa baahi dhab oo jirto oo dareenkeedu idinku weyn yahay sida mas'uuliyiintii madaxdii dadkii hadlay ay u wada celceliyeen aan dareemayaa. laakiin dhameystirka shabaab yaa asigana muhiimad kale oo weyn noo leh. geedka kurdada la yiraahdo hadii aad kor intaad ka xiirto aad maxaa beerta intaad kor geedka aad ka fasho aad ka tagto xays yarna biri uu yimaado kurda iyo meeshiisa kala ahaanayaan. shabaab waa kurda jirid bixin u baahan yahay. jirid bixintiisa reer Maxaas ciidan markay joogtana waa yaqaaneen. caqiida markay joogtana ka hor ay inta isu sheegeen shabaab iska celiyeen. nimankan caqiidada islaamka diinteena islaamka ee qiimaha badan ayay noogu soo gabadeen. laakiin waxaan rabaa inaan idin sheego wadaadana maaha diinna shaqo kuma leh waa koox maafiya ah oo mara weyn oo diin soo hagoogatay waaye. maradiyan annaga inaan ka qaadna rabnaa dadku inay wada arkaan maafiyanimadooda. burcadda jidka taagan ee qaaticu tariiqa ah ee ay diintu ka hadashay waxay ka duwan yihiin male. naftiyaan ammaanka helayn, maalkiyaan ammaanka helayn, dadkiyaan ammaanka helayn, sharaftii iyo karaamadii iyo ciziga ammaanka helayn, diintiyaan ammaanka helayn. nimanku waxaan ku tilmaami karaa aniga waa un imtixaan ilaahay oo dambiyadii horan galnayna looga gudaaye haddana ilaahayna waa u noqonay alxamdulilah. kitaabkiisana gacanta midigtaan ku haysanaa. nimanka ka been sheegayna waa iska dhicinayna. haddii dalkani ay soo mari jirtay dawlad diinta laga ilaaliyo oo ayada diinta laga difaaco waa ka soo gudubna maanta dawlad diinta leh oo horumarinteeda iyo quruxdeeda iyo difaaceeda inay ka ilaaliso waxa oo maxaan ku raayay waxaan khawaarijta ay wataan oo kala banaanka looga soo darsanayo aan diinka ahayn. dawladda dadka soo dawlad ilaaliso amni u sugto soo u baahan. diintuna intaas oo kale u baahan tahay. haddii kale shaydaan kasta meelo inta ka soo galo waxaan loo joogin ku darsana lagu darsamaayo ogolaameyn. ummad muslimiin ah sunniyiin ah oo sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku toosan oo maxaan ku raayay shaaficiyiin ah oo maxaan ku raayay ahlu sunna wal jamaaca ahaana. كله حمينا وحوجينا
wixii banaanka laga yimiday iyo wixii meelaha laga soo dhoodhoobay shalay iyo daraad yimidayna abka ummadan saaf laguma islaamin shalay xoog laguma islaamin qoorka gooyo laguma islaamin faham ilaahay uu siiyay rabitaankoodii ku islaameen maantana diinta intaasay ku haystaan boqolkiiba boqol muslimiin ku yihiin diintii aan ku qasbaanin kar intuu ka yimid kumanaan sano ka hor sidaas kun sano ka hor sidaas ahaayeen waxay tahay maanta diinta lagu qasbaayo oo loo keenayo cusub oo maanta la keenayo kun sano tii ay soo haysatay ku dhasheen ku dhaqmeen aan ahayn diintana ilaahay nimcadiisa waaye waxyaabaha ugu horeeyo ilaahay nagu nimcaystay ka mid tahay uma ogolin in maxaan ku yiraahdaa dulmi iyo dulinimo loo isticmaalo qodobkaas aan ka korna marka khawaarijta علماتين دمانتين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يسفوين كود يسدوا أطل ما مواتقان لقما آيات أخص بدنا لقما حديث دليل شبدنا لكن حيتره مالحون إلهيين أو وحي كانوا دينتو أي إراليسي ومحانكو إرادا يوضن أي محو آياتين عمرين كده ليان كرامة قفقة إرالمة مال كيسة يعد جيس شرفتيسه وحيابها ugu horeeyo asaasiyaadka diinta hal ilaaliyo ay tiri kamid tahay qofka muslimka aan loo baneeyay inuu u dhinto asoo daafacay tiyan maanta marka aan taagana marka nimankaasi saad hore ugu fahamteen waaye faham idinku ma yara inta dhimanna waa dhameystirayna dhulkiina waa xoreysateen wiilashiina idin xukumaaya ee xukun kale oo qof kale meel laga soo dhoofiyo laga soo waariday idin imaan maayo kan idin xukumaaya ama gabadha idin xukumayso waa ka doorateen ka maamulka idin haynaayo waa ka u dhiibateen ma dhacayso in meel kale laga keenay gobol kale Allah ka dhigay xataa iska dhaaf jamhuuriyad iyo dibad iyo iska dhaaf waayo marka ilaahay idinkiis dhulku waa xor tarda iyo teedaan maxaan ku yiraahdaa iyo sooman iyo maxaan ku yiraahdaa xagga u bax buuro burta tag aboorey iyo maxaan ku yiraahdaa iyo maxaan ku yiraahdaa mar jalalaqsi muxuu ahay magaaladeedii tag ceel qoryaale iyo libiga geedi faarax iyo maxaan ku yiraahdaa aad bashiir tag meel walba dalkaani maanta waa xor gobolka hiiraan ilaahay inkiis gobolka shabeellada dhexe sidaad aragteen iyo xawligaad aragteen uga socotaa aadan yabaalad intan adika aad ka kulaaleysaan xaggan looga soo socda ka hartay ayadana waa ka bixinaynaa galmudug sidoo kale waad aragteen dhul badan oo galmudug ka tirsan sida ay magaaladan ayadoo kale xoray ahaayeen shabaab mar hore iska saareen culimo sida adika oo kala ah ayaana ka saaray shabaab oo u diiday inay soo caga dhigtaan iyo dadka deegaanka iskaashaday intii aad adikuna samaysay inta dhimanna hadday u taagan yihiin inta dhiman oo inta badan ay ka bixiyeen inta kalena ay u socdaan ayadana galmudug oo dhan aadan yabaal iyo xaradheere meesha noo hartay waay ceelbuur iyo galhareeri iyo jacar ayaguna sidoo kale dhulka noo haray waa dhulkeenni annaga iskale dhul reer hebel iyo dhul kale maaha waa dhulkeenni annaga ah dadka iskale reer hebelkii aan nahay kuwii deganaayaan nahay kuwii dal ahaan iyo degaan ahaan u lahaanayaan nahay shabaabna u daysan mayn haddii aan la yidhaah marka muxuu ahaay meeshaas intaan ka baxnay ilaa dhulkan ilaa xeebta la isku furo koonfur galbeed Soomaaliya dowlad goboleedka la yiraahdo dadaalka ka dhacay maalin dhaweed waa maqasheen haddana dadaalkii ugu weynaayay abaabulkii ugu xooga badnaaya ka socdo mar dhow koonfur galbeed oo ayaduna aan shabaab waa la barta hadda intay adikeedu ku qaadatay dadka dhan ku qaadamaysa dadka inta harta ku qaadamaysa hadii aan la yiraahdo koonfur galbeed oo baabuurkii xamar ka baxa oo baydhabo taga oo kii baydhabo ka baxa oo xudur taga oo kii maxaan ku raabay baydhabo ka baxa oo sidii Soomaalida ganacsatay oo jirtay oo mandheero u taga oo kor iyo bari loo kala socdo mar dhow ay ilaahay idinkiis aydan arkaysa dadkeedii xawliga abaabulka ku wadaan aanan u leeyahay sidaas daraadii dawladda Soomaaliya oo aniga aan madaxweynaha ka ahay waxa ka go'an wax kala yeelkeeda shabaab dalka in laga waayo fikirkooda xunna in dadka laga waayo